Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkani waa Dansom TV. Dansom TV caawa waxaan ku falanqayn doonaa barnaamijkii madaxda musharaxiinta xilka madaxweynimo ee dalka Soomaaliya u taagnaa 39kii musharax waxaan u eegi doonaa khudbadoodii ay ku soo qaateen waxyaalihii ay bulshada u baanaayeen aysan ka hadlin. Anigoo ah Cabdiraxmaan Matoto ayaa waxaan isoo gudbin doonaa baahiyooyinka dhabta ah ee bulshada ay u baahan yihiin iyo madaxda musharaxiinta Soomaaliya waxyaalihii ay rabeen inay ka hadlaan oo aysan ka hadlin. Sidaan ogsoonahay way jiraan waxyaalo badan waxqabadyo badan ballanqaadyo badan inay sheegaan madaxda Soomaaliya, laakiin waxaad moodaa inaysan ka hadlin waxyaalihii mujtamaca hoose ee bulshada Soomaaliyeed ugu badnayd inaysan ka sheegin hadalladooda khudbooyinkooda ay ku soo dareen. Haddaba maxaa ka mid ahaa waxyaalahaas? waxaa ka mid ahaa sidaan ogsoonahay waxaan soo qaadanaynaa dhowr qodob. Qodob koowaad waxaan ka soo qaadanaynaa maatada dadka ah ama dadka bukaanka ah ama dadka maarkino saboolka ah baahiyadooda. waxaan ognahay inaysan soo waxyaalo aragtidooda ku saabsan aysan ka soo qayb qaadan, sida haddaad ogtihiin caruurta agoonta ama maarkino rajada ah, hooyooyinka maarkino caruurta la taala dhacaya baahiyooyinkooda, waxaasoo dhan inay waxba ka soo qaadin. waxaa kaloo aan ognahay amniga dalka inuu baaba yahay, magaalo looga gudbi karin aysan jirin. ayadana waxaa ognahay inaysan wax qiimo weyn ah ama khudbadooda ay ku soo qaadan iyo wax ay wadan leeyihiin. taasna waxa weeye aragti fiican oo dhab ah kama aysan soo jeedin khudbadooyinkoodii. waxaa kaloo soo qaadanaynaa waxay tahay biyaha baahiyo wadanku waxaan ognahay inay ka jirto biyo la-aan baahsan, inaan ognahay baahidaas oo dalka oo dhan masiibo ba-an ku haysa. ajanda fiican ama bandhig fiican oo ku aadan sidii loo heli lahaa ama sidii ay ku hirgelin lahaayeen ayaga laftigooda musharaxnimadooyinka kuma aysan qaadan. tamarta iyo macdanta sida qoraxda looga faa'iideysan lahaa ayadana kuma aysan soo qaadan. waxaan ognahay korontada inay tahay halka kilowatt inuu yahay $1. waxaan ognahay ganacsatada inay ku hayaan ama ganacsato ay leeyihiin, ayadana aragtidooda ama waxyaalaha ay soo bandhigayaan halkaa ugama samayn. haddii ay dhihi lahaayeen markan ay kusoo bandhigi lahaayeen inay solar ama markan oo keeni doonaan wadanka qoraxda laga faa'iideysan doono, qiimaha korontada hoos loo dhigi doono, biyaha hoos loo dhigi doono, biyo gelin badan la samayn doono. waxaasoo dhan waxay ahayd baahiyooyin badan oo dhiman wadanka dhiman bay ahayd. waxaan ognahay waqtiyada webiyaasha imaanayaan inay dalku keenaan fatahaadaas aan laga faa'iideysan, biyo celin la samayn, mashaariic la samayn, ayada laftigooda ma aysan soo gudbin. waxaan ognahay in maarkino isku socodka gobolada inay cariiri badan uu ka jiro dalka. ayadana waxa sidaan sheegnay waxay hoos imaanaysaa amnigana waxyaalaha saxa oo cad kuma aysan aadin waxay ay kala yeeli lahaayeen. haddaba madaxdaas 39ka ah ee birito maalinka ah u taagan dalka Soomaaliya waxaan dhihi lahaa mar kale ha lagu celiyo in khudbadooyinkoodii iyo habka ay u hadli lahaayeen, maadaama ay taas aysan kusoo bandhigin baahiyooyinkii saxda ahaa ee dalka laga rabay, aysan sheegin weli musharaxiis dalkan iyo dadka u danqan lahaa. wadanku waa ka dhiman yahay sababtoo dalka iyo dadkiisu waxay u baahan yihiin musharax dadka hoose eega, laakiin aan eegin nolosha sare dadka haysta aan eegin. waxaan ognahay 80% dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad nolol hoose ku nool, maalinkiina ama qadada hela ama quraacda u goyso badankooda. marka aragtiyadooda ay ku soo bandhigeen khudbadoodii waxaan dhihi karaa weli ma aan arko nin madax ah ama nin madaxweynimo u socday oo weli ajandihiisa kusoo aadiyey dadka tabarta yar iyo baahiyooyinka waaweyn sida korontada, biyaha, bangiyada. waxaan ka tagay bangiyada weli maanu hayno lacag Soomaali maanu hayno. waxaan ognahay inaan niman xawaaladley ah dalka inay dadka cunaqabateen ku hayaan, wadanka dowladnimadeedana xawaalada dadka haysta ay ka shaqeyn lahaayeen. ayada laftigooda aragtidooda kuma ay soo qaadan. marka waxaan dhihi lahaa madaxda waxaa ka dhiman waxyaalo badan oo hoose. waxaan dhihi lahaa waxaas dib ha ugu laabtaan,
waxaan midaan oo baraarujin wacdigelin dalkana waxaanu ognahay dadka ganacsatada inay dadka saboolka ay cuno qabateen xun ku hayaan marka waxaan dhihi lahaa duu idinka ilaahay waxaan siiyay dadka saboolka u naxa isuna naxa marka tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anigoo ah Cabdiraxmaan Mutoote